ducadu waa fara badan tahay waxa la soo koobi karana maahan hadda laakiin waxaanu soo qaadanaynaa sida aanu maaragtay sheegnay dacwaatul makruub qofka markaasi kurbadu ay hayso oo kurbadu ay ku dhacday ducada uu ku ducaysanayo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadii uu ku bariyo ilaahay kurbada uu ka faydaayo marka waxaanu soo qaadanaynaa xadiis Bukhari iyo Muslim ay wariyeen oo xadiisu Tirmidina ah laga wariyay saxaabiga jaliilka ah oo leeyahay Abdullah ibn Abbas waxa laga wariyay ibn Abbas anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqulu 'inda al-karb la ilaha illa Allahul 'azimul halim la ilaha illa Allah rabbul 'arshil 'azim la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul 'arshil karim sidaas ayaa nabigu dhihi jiray alayhi salaam markii waxa weeye kurba ay qabsato waxa dhihi jiray rasuulku la ilaha illa Allah إلهي مويانا إلهي لك لما جران لا معبود بحق في الوجود إلا الله ويه الحق اللي عبد كون كان مجرى الله مويه الله سوء عظيمة وهدنا حليمة وحلم بدن الله مويانا إلهي لك لما جران لا إله إلا الله رب العرش العظيم إلهي سبحانه وتعالى عرشك ربي يسوي وين مركا عرشك وحال وصفيه maartay cadamo maxay waxa loo nisbeynaya ila akramil akramin wa arshigi ilaahi subhanahu wa ta'ala amase waxa weeye rahmadda ilaahi ayaa arshiga ku degta ka bacdi ayay markaasay khalaa'iqda soo aadaan la ilaha illa allah rabbus samawat ilaahi subhanahu wa ta'ala samawaatka ali rabbi oo abuuray weeye wa rabbul ardi arlada allah abuuray weeye oo rabbiga u ah wa rabbul arshil karim arshiga karimkaani إلهي سبحانه وتعالى مد أبو روي مركا دعاء سام محل شاهد كين وياه مركا وحوي ودعاء أو مركا سام فالين أما إلهي سبحانه وتعالى الله صفاي أو لجسوع العش اسم ربي أيال لجسوع العش أو مركا شيء لقى سوقاته تربية لقى سوقاته معايا لو حي كين يسا عطف نحريس هي إلهي سبحانه وتعالى قفكاس كد عيسى كربة إلهي نكفيده هذا رب العرش العظيم أيا إلهي يريو لغسو عليه وهو العظيم البالغ في العظمة إلهي وامدك كحيل له عظمته هي رحمته هي إحسانك وصفك صفك